maxkamadda sare ee dowladda Puntland ayaa maanta soo gabagabaysay dhageysiga kala dacwad ciqaabeedka uu eedeysanaha ka yahay xukmane Cabdikaafi Maxamed Axmed oo ku eedeysan kufsiga iyo dhimashada Ikraan Siciid Cismaan. Dhageysiga kiiska oo soo maray 3 fadhi ayaa waxaa fadhiga kaba dambaysta goobjoog ahaa xafiiska xeerlaalinta guud, qareenada eedeysanaha iyo marxuumadda ehelada labada dhinac iyo dadweynaha. Gudoomiyaha fadhiga garsoore Siciid Maxamed Maxamuud ayaa dhageysiga fadhiga furay. maxkamadda sare ee dowladda Puntland maanta oo taariikhdu tahay 28 bishii Afraad 2025 waxay u fadhidaa jalsadii saddexaad kiis ciqaabeedka galka sumadiisu tahay gaala raaca eber 3-2025 galkaas oo eedeysana ka yahay xukuumada Cabdikaafi Maxamed Axmed ina haweeye askar 30 sano jira kuna eedeysan qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo xeerka lambar 4 qodobka 6 ee xeerka kufsiga dowladda Puntland dhibanana ay ka yihiin ehelada marxuumad Ikraan Siciid Cismaan Waloore iyo dowladda Puntland. isla markaa waxa dacwadan goobjoog ka ah dacwadoogaha ku metelaya xafiiska xalaaliyaha guud xalaaliye Cabdiqani Diiriye Cawl iyo qareenka dhibanaha qareen Cabdiqani Maxamed Nuur, sidoo kale qareenka eedeysanaha qareen Bashiir Cabdiqaadir Siciid. waxa maxkamadda soo gaaray dowladda Puntland raafaanka sumadiisu tahay xaaga daba saaca eber 5-2024 kuna taariikhaysan 23 bishii 12aad 2024 kana soo baxay xafiiska xeerlaalinta gobolka Nugaal lidina ku ahaa xukunka sumadiisu tahay maaragana 347-2024 ee ku taariikhaysan 6 bishii 10aad 2024 kana soo baxay maxkamadda sare ee maxkamadda raafaanka ee gobolka Nugaal. waxa kale oo soo gaaray kabida raafaanka ku taariikhaysan 28 bishii 10aad 2024 ee soo gudbiyay qareenka dhibanayaasha qareen Cabdiqani Maxamed Nuur. waxa kale oo soo gaaray maxkamadda jawaab celinta raafaanka ku taariikhaysan 4 bishii 2aad 2025 oo maxkamadda u soo gudbiyay qareenka eedeysanaha qareen Bashiir Cabdiqaadir Siciid. haddaba maxkamaddu waa inoo furan tahay. ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee dowladda Puntland Cabdiqani Diiriye Cawl oo dacwadda maxkamadda ku metelayay xafiiska xeerlaalinta guud ayaa maxkamadda ka horjeediyay raafaanka uu ka soo qaatay xukunka ka soo baxay maxkamadda raafaanka gobolka Nugaal. maadaama ay u caday xafiiska xeerlaalinta guud qoraalka warqadda ku taariikhaysan 24 bishii 12aad 2023 sumadeeduna tahay كما يا ما كله 2412 إسبارو 2023 كويت ميديكال سنتر. هذا حفيظ حيرالنتا جود وهو عدينا إن دم بدعي دم كانوا وقال إذا عبدكافي سوى فخص قضاء بقول يطبن بقول لحد يصدق حركة عقاب الصومالية دم بدعي برال بكويه هاي عبدكافي سجل الشيء إنه قبل داوع جارسي قبل داوع بقول لمطي وحكلوا هذا سجل كريحة يعني مشروع لين عكوفسك وصاع عدينا قضاء كلباتني تضرب لباتني سجل لبض قضاء واحد عدينا يعني إنه جاري كانوا قرينوينك هدي حتى عدي مع لك هذا عدي مع بان وكان سيدا درت واحد محكمة شرفت لك عصنا إن نجا قبل شهر رفعانك عن سوق هذا الني سوى فصل قضاء كلها بقول صدق يلا حير كاب عقاب الصوماليات إلى إسلام مركز إن اللي جت بيسو حكمك إسقى أسبابتيسو أسكهر معنا يعني اللي سوق بيه محكمة السريع سوى فصل قضاء بقول لباتني كو حير كاب عقاب الصومالية ما دام أسبابتي يحكمك إسخلافه وحيالا أنك سوق هذا الني رفعانك qareenada u doodayay eedeysanaha iyo kuwa difaacayay marxuumadda ayaa iyaguna maxkamadda ka horjeediyay doodda difaac ee muwakkiliintooda. waxaa la soo bandhigay cadaymihii muujinayay in marxuumaddu u dhimatay dhaawicii uu u geystay eedeysanuhu, waxaana ka mid ahaa cadaymahaas cadayntii laga qoray dhakhtarka, cadayntii laga qoray gabdhihii meydka mayray. sidoo kale waxaan soo bandhignay inay gabadhu aysan wax badan dhaawicu markuu gaaray aysan sii noolayn sida xeerlaalintu mataqaana ay cadaysay. sidaa daraaddeed waxaan maxkamadda sare ee Puntland ee sharafta la ka codsanayaa in ay ku xukunto eedeysanaha ciqaabta uu xaq u leeyahay. waxaan maxkamadda sare ee dowladda Puntland ka codsanaynaa inay dhaqan